وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا ويبكا حمر عده oo aad ugu barateen barnaamijta faa'iidada u ah bulshadeena Soomaaliyeed. Caawana bahdu waxay idin soo gudbinaysaa barnaamij la magac baxay codka maatada. hoostiina joogta ee dhiigooda la daadinhayo maalin walbaba uu qubanhayo idinkaa mas'uulka in oolka ay aad madaxa geliseen hooyadaa uurka le ee aad dooxdeen ilmaha agoonka ah ee aad geliseen idinkaa mas-uul ka ah ilmahan aan qaan gaarin ee 10 jirada ah ee hooyooyinkoodna ay ooyahayaan ee aad xoog uga soo qaadateen oo aad askarayseen oo aad ciidamada ka dhigteen iyadoo haddii aad tihiin macallimiinteeni iyo culimadeeni idinka iyo maxaad ku kala duwan tihiin qabqablayaashii dagaal oogayaashii muddada 20 sano ah dhiigga shacabkooda daadin hayay ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما haddaba aan isaga kiin dhexbaxo codka maatada iyo maxamed sheekh ibraahim kenyawi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحو إنه شيء يا كتاب كيسة كريم كأه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. ولا ليال سيدة أكسونتهين وحين كنا والله وأين جوجنا حلي خير كيسو يريحي شرتيسونا بدنتهاي وحين كجرنا آخر الزمان وقته وإنو شيء رسولك نصوبا صلوات ربي وسلامه عليه. هبينكي وحين كأركينا ساعدي مالنكي وحين كأركينا ساعدي المهن يدقن كوذ أخلاق ذوذ وحين كأركينا ساعدي دم والبو أن إيقنو هريرهن وحنو كأرقنا ساعدي وإنو شيء صلوات ربي وسلامه عليه. dagaaladaan aad aragtaan ee 20 sano kala go'o aan lahayn ee kan wax dilaya aanu aqoonin sababta uu wax ku dilayo kan la dilayana aanu garanaynin sababta lagu maagahayo oo lagu dilahayo rasuulkeena salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ayaa wuxuu inoo sheegay 1430 sano ka hor yaa u sheegay rasuulkeena yaa u sheegay nalama uunan joogin maanta Soomaaliya waxa ka dhacaya ayaa u sheegay Allah subhanahu wa ta'ala waxay cadeynaysaa maanta waxyaabaha ka dhacaya dulmiga aynu isku haynaa waxay cadeynaysaa rasuulkeenu in uu yahay nabi macsuum ah nabi mursal ah in uu yahay ilaahayna uu soo diray rasuulkeenu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi la taqumu as-saa'atu hatta yakthura al-harj la taqumu as-saa'atu hatta yakthura al-harj. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل وحير ساعد دعي ميسو آخر زمانك إيمان ما هيو إلا أوبة هرجك وحيرهن وما الهرج يا رسول الله؟
qaala alqatl wuxuu yidhi waa dil aan kala go' lahayn oo aabbuhu wiilkiisu dilahayo hooyadu gabadheeda ay dilahayso labadu walaalaha ay isdilayaan macalinka ardaygiisa uu dilayo sheekha uu dilayo ma aragtaa tilmiidkiisa uu dilayo dadku dhan ay iswada dilahayaan oo ayan aqoonin waxa ay isku dilahayaan haddana الصادق المصدوق حديث كان أيه وحنو شيء يا رسول صلوات ربي وسلامه عليه إسقوا ولبا دارن هيا إن أي دعيس أرن كان والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل يا سبحان الله بالفير والذي نفسي بيده الله waxaan ku dhaartay buu leeyahay rasuulkeena suuban isagoona dhaar u baahneen nafsadayda ay ku sugan tahay gacantiisa la tadhab ad-dunya adduunkan tagi ma hayo hatta yati ala an-nas yawm illa udadku kaga yimaado maalin la yadri al-qatil fi ma qatal kan wax dilahaya aanu aqoonin oo aanu garan hayn waxa uu wax ku dilahayo wala al-maqtul fi ma qutil kan la dilahayana aanu garanaynin wax lagu dilahayo ilaahay baan ku dhaarshay arinkaasi ma dhacay oo ma runba mise maaha 20 sano maxaa la isku dilahayay maalinkii ugu horeysay ee wadankeena aanu ka soo kacnay 90kii ama 91kii odayga qoriga qaaday ilaa imaanta qorigii buu hayaa intaas dhiig ayuu daadinhayaa haddaad weydiisid war maxaad wax ku dilaysaa oo aad dadka u leynaysaa haddii aad dhahdidna garan maayo kuu sheegi maayo annaga waxaan u hadleynaa oo caawa halkan aan uga dareenaa tacsi iyo baroor diiq shacabka danta yar maatada maxaasta dadka aan hubaysnayn dadka ku dulman magaalada muqdisho iyo wadankeena iyo dhan guudi iyo banaanba waxaan idin sheegayaa shacabkiinan dulman waxaan idin leenahay isbiru sabra ilaahay baa maciina haddii aad ku dulman tihiin oo laydin xaqiray walaalihiin culimadiinii macallimiintiinii hadday idin xaqireen oo ay maanta qori idin sitaan dhiiggiinii daadiyeen meydadkiinii ay ka tilaabsan hayaan waxaad ogaataan oo aad ku qanacdaan kuna raali noqotaan ilaahay agtiisa aad qiimi ku leedihiin caawa waxaan idin sidaa hadiyad qiimi badan oo aan idin kaga sida rasuulkiina suuban al-macsuum as-saadiq al-masduuq alladhi la yantiqu 'an al-hawa صلي على النبي كسل يا رسولكينا صلوات ربي وسلامه عليه رسولكينا وحوليه ولئن تزول السماء والأرض أهون عند الله من أن يراق أو يسفك دم مسلم إن سماواتك يقولك أي زولان سماواتك موحي أربعة تدور السماء يتدور أنت قلنا حيثولا أو زولة أو تقى أو لوايو إله وحي أغفض الضحي إلهي قفك مسلم كأهديجي سولة دادية بمعنى سماواتك إن لوايو أو دولالك لوايو وحا كل حجر لوايا فضط انت لدادين لها قف مؤمنة ديجيسة ديجين عيار معها عاو وحن دونيا إن أنكو بشاريو كو حسوسيو قولك رسولك كريم قولك ذهب كصوب حي أفكا شريف عرفون رسولك نصوب صلوات ربي وسلامه عليه كسل الرسول كما رب مجلس أد مقشي فيري مالي مال ما كمد استجي أبا ذر أو قربها إسهايستا أو سعودة مقالة مدينة دحديدة أيا وحا أو أركي لبري أو هردمايا أو إسدليا أو جيسها سلدعايا أيو أركي أبا ذر أنتم كجستا وحوجري ما قرنيسا وحي إسو هردينيان أو أي جيسها إسو دريان أو أي كد قالميان لبدان في أبا ذر وحوجري لا يا رسول الله أنا ما أقاني إيك قولك رسولك يا مركو وحوليهي لكن الله يدري أذوق موجد أبا ذر لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة يا سبحان الله عادل لماذا فيري إلهي با قرنها يوير أذوق هدادا قرنين لبدا وحي كدقا لما هيان وحوله وحويان وحمقرتك ويان عقلي لهين أن تكاليفت لصارن رسولك عليه إلهي با قرنها وسيقضي بينهما يوم القيامة مالك قيامها نوك الحكمة ومالك إلهي أوليه ونضع الموازين القسط